alla naxariistii jannaha ka waraabiya waxaa dalka UK ku geeriyooday Maxamuud Ismaaciil Xudaydi oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku xanuunsanayay wadanka Ingiriiska. Taariikhdiisa nooga waramay Axmed Saleebaan Maxamed Axmed Saleebaan Bindi oo aan ku booqanay hoyga uu magaalada Hargeysa ka degan yahay. Axmedna waxa uu ku bilaabay hadalkiisii sida tan: adduunyadu sheekooyin fara badan bay leedahay, dadkana noloshiisu sheekooyin fara badan bay leedahay. haddii la ysidhaaha ka wada sheekeeyana lagama wada gun gaari karo, haddii la ysidhaaha gaabiyana ma habboona. wax waliba dhexaadkay ku wanaagsan yihiin, sidii nabigu ina yidhi calayhi salaatu wasalaam, amar waliba waxay ku wanaagsan tahay mutawasit inay ahaato meel dhexaad. waxaan uga jeedaa aan soo koobno, si fiican aan u soo koobno. maxamuud ismaaciil xudeed wuxuu ku dhashay magaalada xudeeda, wuxuu ku koray magaalada cadan, wuxuu bartay carabida, quraanka, ingiriisida, hindiga waxbu ka yaqinay. nin buu ahaa mutacalima, reerkooduna yahay magaali, aabihiina madax buu ahaan jiray, ciidamadii ingiriiska ayuu madax ka ahaan jiray xudeedi. maxamuud wuxuu ku kacaamay xoog u kacaamay cadan, tacliinta iyo shaqadiisa iyo noloshiisa aad baa loogu jeclaa. waxaase ku darsaday fanka iyo suugaanta, dhaqanka iyo hidaha ku salaysan soomaalida taariikhdeeda. wuxuu ka gaadhay, allah ku mahadleh, heer weyn buu ka gaadhay. isaga iyo maxamed saciid guraanjire oo yemani soomaali ahaa, iyo cabdilaahi qarshi, xuseen aw faarax, yuusuf xaaji aadan, cumar carte, maxay ahayd cali sugulle, maxay ahayday maxamuud ismaaciil barkadaas oo reer basrace ahaa, qoyskii keeni jiray bariiska basracaha tijaarta ahaa. waa balaayahaas ninkii la odhan jiray, markii dambana loo bixiyay barkadaas. iyo cali sugulle, ismaaciil aw axmed waa ninkii la odhan jiray cagaf cagaf, macalin harudna waa la odhan jiray, cashaqa badnaa, cilmi bowdhari markuu wanka galay caashaqii galay tooga. anigana laygu soo qoray beri dhaweyto oo idaacadu sheegayeen ka saddexaad lamartiriga. waxaas oo fara badan oo taariikh leh oo raggaa waaweyne hore ah ayuu wax la qaybsaday oo uu ka mid ahaa. xudeedi wuxuu ahaa nin jiray, wuxuu ahaa nin jecel gobonimada, wuxuu ahaa nin neceb gumaysiga, wuxuu ahaa nin diida oo ka jir diida oon soomaalida u ogolayn qabyaaladda inay mafaariista iyo gudaha iyo magaalada iyo waxa kufaashaaka ku samayso. nin la neceb soomaalida qabyaaladda iyo danseega ayuu ahaa. wuxuu ahaa maxamuud ismaaciil xudeedi wuxuu ahaa geed nabaddu harsataa, wuxuu ahaa geed nabaddu ku nasataa, ku nagaataa, lagu noolaada. xudeedi wuu jiray oo wuxuu ahaa nin jecel dhaqanka iyo hidaha soomaalidu, gabay, geraar, hees, guurow, buraanbur, wax kastaba ha noqde inaanay baabi'in, waayo adduunyaduba intaasunbay ku dhaadataa. wuxuu ahaa nin neceb qabyaaladda gabayada la isu sameeyo, wuxuu ahaa nin neceb duulka dadkan qoysba qoysku duulo ee isjiira ee wax yar intay isku dilaan wax badan ku kaca oo uu odhan jiray kawaaniya. dadkan miyiga ama magaalada kuma badnee kawaaniya isdilka isdilaya. waayahay wuxuu ahaa nin noloshiisu ahayd mid daahira oo aqoon leh oo waddadii haysata nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inagu ballamiyey ee ilaahayna faray ee u horreysay nabadda. wuxuu odhan jiray soomaalida ha kala tegi. waxaan ku soo gaadhay dayaxa 1962 ayuu noogu yimi, isagoo cadan ka yimi oo kaban weysita ayuu noo yimi. macallimiintii meesha joogtay markaas ayaa soo dhoweeyey. cabdisalaam xaaji aadan iyo bay ahaayeen, xasan cali hilali iyo maxamed ibraahim lamuube iyo cabdilaahi cadeeye. nimankaasoo dayaxa iskuul labanlaaban oo intermediate waxay dhahaan double strips intermediate school
ayaa jiray oo noogu yimi kolkaasaa riwaayad aanu sameeyey islaadir samankii ayuu la yidhi eeg riwaayaddii baa nabadii la soo xaadiriyey way dhigano 100% bay noqotay 100% anigoo warshada ka shaqeeya la yidhi markaa ciyaaraha iyo waxaana la qaban qaabiya iyo wixii tacliinta iyo iskuulka waa iskuul horaan ka soo baxay anigu markaa sanadii 6 bilood anigoo abaranta saarkiisa ayaa dayaxalay bedelo warshadii dhamayd baa la dhibay magaaladii laynka lahayd sarkaal halka tuulo jooga ayaan ka tuulo magaalo weyn baa labada durbay leedahay wasada ka baxda qorada buuraha wadiyaabaysa adigu wixii imka filim baan ka sameeyo waxaaba qabtay si geelahan ina la fadhiya maxaydiin على حال صوري وحيقولي بين سلامتي ها بهو قبل ترى امتى ذهب يسوق شقيه وانا قال خسر لو محور انت رسولي وحو هانك يرجع نك كويلي الله يوم حفرنتي نعس فريدي وفريد لا بين رجل فيل ورسول او ميدان ابي فول شيء فلسقري سلامتي وقرنا يا ابو نقر واد سبي ويا حبور شارع حرس قبي بال اورنج اورنج كل سبب شيء هستي من هذه رواد وين انتهى سود ابو وعباس عبد السيد فيوس نيوز مقالة هرقيسة